runtii sharaf weyn bay dawladda Puntland u tahay inay kulamada noocaan oo kale ay martigeliso waxaana ku baaqaynaa kulamada geedi socodka Soomaaliya loogu hadlayo inay Puntland aad u soo dhaweyso waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta ka sheego inay Puntland diyaar u tahay inay martigeliso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnoqda oo la yiraahdo maqaamka Muqdisho in garowga looga hadla soo dhaweynaa Muqdisho waa magaalada madaxda Soomaaliya waa magaalada astaanta waa qaranka Soomaaliyeed maqaamkeedu inuu dood aan dhamaanin ku jiro aad bay noo dhibaysaa xaqiiq marka waxaan jeclaan lahayn dood furan oo cid ka sheeganayn Soomaalidu iyo miir qabtay intay isugu timaado waliba Muqdisho laga soo fogeeyo ilaa ninkii dooda weyn qabay hadii la gurigiisa loogu tago Ali Maxamed Geedi halka jooga waxa dhici karta hadii dhaqanka waxay noqonaysaa in laga careysin inaad maartay gurigiisa ugu tagto marka waxaan leeyahay in meel ka soo fog oo la isugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasisan inta aan ka warqabo waxaan kaloo ii muuqanaysa runtii si laab furan in loo wada hadlo waxa iyadana ku soo dhaweynaya halka arinta Soomaaliya iyo Somaliland iyadana waa caqabad kale oo hortaagan dastuurka aniga saa u dhigi maayo Soomaaliya iyo Somaliland wax la yiraahdo sida hadda entity-gu uu jiro laakiin waxaan qabaa walaalahan gobolada waqooyi jira ama maamulka Somaliland inaan iyagana garow yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan ay soo dhaweystaan inaan doodeena dhiibano dadka la hadalno kama baqayno dadka reer Puntland waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka baqin haddii xujo fiican haystaan way haddii kale waxaan u muuqanaynaa dad aan xujo haysan dawladda Puntland asaaskeeda iyo marxaladii loo maray iyo dadka aasaasta iyo xuduudaheedu wax mugdi oo ku jira ma waa cadi cid awood gaar ah u leh oo gorgortan ka gali kartana ma jirto dadka dhistay way cadi waa maamulka kaliya oo deegaanadaas dadka ay degan yihiin kulligood intay isugu yimaadeen muddo badan fadhiyeen go'aan rasmi ka qaateen oo iyada oo muuqaal iyo cod iyo document la hayo maamulada kale qaybtooda halka jiro waad ogtihiino jujub baa lagu dhis dadkooda joogin Somaliland waa ogtihiin boor baa lagu dhiso dadka ka qayb gal waa taqaanaan iyo dadka ay sheeganayaan xaqiiqada in la iska indhatiro ma la rabo Puntland deegaanada ay sheeganayso dadkii siyaasiyiinta u ahaa cuqaasha u ahaa indheer garadka u ahaa kulligood ayaa 98 halka yimid dadka aan aad u xasuusto Maxamed Xaabsade iyo Gaagaab aniga anoo nin yara ergada kamid ah waaga sameeyay aqoon laakiin ergadan ku jiray si fiican baan u ogahay dadku marka si fiican bay uga qayb galeen deeqo culujoog inkastoo hadda deeqa nabad u joog loo bixiyay magacaas aabaheed buu hayadu laakiin waa nabad u joog waxaan filayaa buugga ay soo bandhigteen aad bay ugu faahfaahisay xaqiiqada dad badan waa og yihiin أنا waxaan qabaa waxyaabaha masiirka ah iyaan la siyaasadeyn wax adiga ka dambeyn doona siyaasadeynteedu macno ku sameeyay sida siyaasadda Soomaalidu u taqaan siyaasaddu waxay u muuqatay shaarna leeyahay uu tolanayo intuu Taylor ka tago saas anu igala weyn tahay siyaasaddu waa maamul masiir umadeed la maamulayo marka waxay u baahan tahay in dhab lagu dhiso in xaqiiqo lagu dhiso in qalbi waasic lagu dhiso wax hadaad fiirisid Soomaalidu leeyahay waa isku haystaan marka aad u dhuxdid waxa la isku haysto aad kugu ma muuqanayso wax muuqanaya oo xaqiiqo ah ma jirto أنا waxaan is leeyahay doodaha kani in ay dib u heshiisiin dhab ah oo ficil wadata inay ka soo baxaan waxa uu weheliyay Puntland inay soo bandhigto gacanna laga siiyo qodobka dib u heshiisiinta Puntland way ka gudubtay laakiin qodobka u dhiman waxa weeye qodobka dimuqraadiyeynta oo ah in qof iyo cod
waxaan ka garan kartaan annaga wasaaradda arrimaha gudaha waa federaalka iyo dimuqraadiyiinta dib u heshiisiinta naguma jirto dadkaan ma dagaalsana sharciga iyo waxay dhigteen kuma kala duwana aragti ka duwan siday Puntland ku dhisantaa cid qabta aan wali ma arag ciddii qabtay waxa wax ka duwan cid aan Puntland joogin weyn waxa ay rabtaa laakiin nidaamka siyaasiga ee ku imaanayaan madaxdu inay horumariso waxaan aniga qirayaa deegaanada Puntland in nabad la isku haleyn karo iyo isku caloolfiyoobaan ay ka jiraan oo ay sahlan tahay in laga fuliyo in dadku isdoorto waa xaqiiqataas ficilkeeda dawladda Puntland intii karaankeeda ah way jeceshahay in arintaa ka shaqeyso waana iga go'an tahay xaqiiqatan shakhsiyan ismana lihi sida dad badan u fakaraan dimuqraadiyada inta ka shaqeysid baa cid ku khasaaraysa jirta waa dhici karta madaxda qaarkood inay shaararka aan sheegay ka dhigtaan oo inay dhaha ku khasaaraysa laakiin ninkii dadkiisa wax u qabto sharafta gaagaab iyo uga tageen oo kale uu yeelanaya maxamed cabdi xasan hadduu xil ka tago weli karaamadooda waa yeelanayaan marka hadduu wax fiican qabto oo doorashadaas xataa uusan hadduu rabayba uusan ku helin dhaawac ma soo gaarin dadnimadiisii iyo hankiisii waxaan qabaa bal wuxuu ka heli karaa qofka nidaam jira nidaam kale uga raray inuu horumar ummadiisa u soo kordhiyay isaguna uu maaragtay uu arintaas ammaan ku mudan yahay marka waxaan ku boorinayaa siyaasiyiinta iyagoon waxba kala riixanayn kala jiidanayn inay si waafi u soo dhaweeyaan arrimaha runtii dadka jiidanaya oo dhaqanka aan u leenahay oo ah xiniftanka reeraha ka dhaxeeya waa wax taariikhi ah oo jira laakiin waxay u baahannahay koox intay ka korto dadka u sahmisa oo meel dooga dejisay u baahantay culture-ka waa laga guuraa Soomaalina uguma horeyn cidda intay culture ka guurto culture kale u guurto ummaduhu adduunku waa soo mareen waxaan isleeyahay inaan dhaqanno aan noo masaabaxayn dawladnimadu inay qayb ka qaataan haddii jireen waa laga guuri karaa anigu sidaan aaminsanahay laakiin waxaa la rabaa dadkii geedigaas hogaamin lahaa in la helo oo dadka iyaga oon rabin u rari lahaa meesha wanaagsan maxaa yeelay dabeecadda bini aadanka ayaa ah wuxuusan aqoon inuu ka baqo oo natiijada ka soo baxaysa uu ka shakiyo laakiin haddii cid natiijadaas inay fiican tahay og ay kaxayso markay dejiso u mahadnaqi marka waxay ila tahay dadka noocaas ahaa dadka halka fadhiya iyo in la mid inay tahay waan isleeyahay qodobada Soomaaliya inay heshiiso xasaasiga u ah in aad looga shaqeeyo waxaan sidoo kaleeto hambalyo iyo baaq u darayaa shirarka dib u heshiisiineed ee ka socdo deegaano Soomaaliya ah oo ay ka mid tahay deegaanka Hobyo oo hadda ay ku shirsan yihiin beelaha deegaankaas dega oo aan u rajaynayo xaqiiqdii inay tahay shir noocaas oo kale intii hadda aan ogahay ay qabsadeen waa tallaabo aad u weyn oo dib u dhiska Soomaaliya qayb ka qaadan doonta waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dib u heshiisiinta ka socota Dhuusamareeb oo iyadana aan rajaynayo in ay dawladdii Galmudug ay ku soo caafimaado oo dib loogu yagleelo anoo ka xum dhaawac soo gaaray waxaan kaloo baaq u dirayaa dib u heshiisiinta ka socota Kismaayo ee ka dhalatay khilaafyadii ka dhashay natiijadii doorashada ee Axmed Madoobe lagu doortay ka dhalatay in iyadana dib u heshiisiin laga galo waarta waxaan kaloo sidoo kale baaq u dirayaa dawladda federaalka ah oo ah dawladdii Soomaali ka dhaxaysay oo anigu hadda kadib Puntland baa ah ma dhahayo dawladda hooyada ah waa dawladda federaalka bal hooyada carruurteeda dib ha u xasuusto ilaan hooyada anagana lagu dayn waaye marka inay bal dawladda federaalka ana ay ogaato inay iyadu u buucdi tahay oo iyada laga rabo in ay noqoto midda horseedaysa inay Soomaali ay dib Soomaaliyeed waa khataraha soo kordhay hadda aan maqlaayo oo khaldan dadka Soomaaliyeed cadow iskuma aha waa dad walaalo ah khilaaf waa soo dhex mari kara inay iska daaweeyaan iyagay u baahan tahay laakiin cid kale inay u adeegsadaan khilaafkooda ee taladaas kuma talinayo marka deegaanada mararka qaarkood ay ku kobcayaan
oo dadkii deegaanadaas aysan waxba ka qabanayn aan waxaan kula boorin lahaa dadka deegaanadaas ee labada u qaybsama kuwii marka hore gacanta siiyana inay ka waantoobaan kuwa masaakiinta oo hadda aan awood u lahayn ay isaga dulqaadaanna inta kale oo fiyo inay ka dulqaado marka la dagaalanka argagixisada iyo ka safaynta fikirka xagjirnimada Soomaaliya waa qayb muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya haddaan kaas lagu dhiiran dib u heshiisiinta aan sheegayno macno badan yeelan mayso maxaa yeelay hay'ado dawladeed aan dhisnaan niri hay'adaha dawladeed meeshii laga dhisi lahaa dad aan dawladnimada rabin hadday joogaan sidii loo dhisi lahaa iyadana way adkaanaysaa marka waxaan u baahannahay arrintaas in si mugle looga wada shaqeeyo waxyaabaha caqabada ku ah deegaanada koonfureed xoogooda waa awoodda sii kobcaysa ee ururadaas argagixisada ay yeelanayaan oo aad u adkaanaysa in dawladnimadu ay ka hana qaado haddii 30 sano lagu jiro xabad iyo ciidan oo dadku aysan degin iyada naftirkooda dhibaato waxa la rabaa xalka ciidanku waa xalalka ugu dambeeyay laakiin inuu waqtigeysan yahay la rabaa soo afjarmo hadduu daba dheeraado ee wuxuu burburinayaa dhammaan awoodihii bulsho meel degan ay lahaan lahayd waxaan runtii aad uga mahad celinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisa halka oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxadka sitra iyo inta kale runtii gacanta ka geysatay iyo inta cilmi baarida samaysay waxaan aad ugu rajo weynahay inay ka soo bixi doonto go'aano dhaxalgala oo ummadan runtii u noqda kayd la hubo wax ummadda Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa muddada ay halka inta isla joogta in waxa ka soo baxay noqdaan wax ummadda Soomaaliyeed u aydo oo mustaqbalkeeda qayb ka geysata sidoo kale martida deegaanada kale ka timid oo ugu horeyso mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sida magacyadooda halka laga sheegay ee wasaaradahooda iyo asxaabta kale halka joogta oo xildhibaanada dawladda federaalka ah qaybtood ay ii muuqato ay halka joogaan waxaan runtii u rajaynayaa muddada ay joogaan inay qayb ka qaataan doodaha saxda ah ee deegaanada ay ka yimaadeen ka guuxaya shirkan waa shir Soomaaliyeed waa shir sida aan u dareensannahay uu daawo inuu ka noqdo la rabo dhammaan cudurrada isku midka ah ee Soomaalida waa dhici kartaa in meelo qaarkood lagu kala duwan yahay laakiin cudurradaas waa cudurro isku eg wuxuu u baahan tahay in run la sheego wuxuu u baahan tahay in wixii run laga sheegay ee lagu heshiiyey la isku aamino aamin darrada dadka Soomaalida kala dhex taala ruuxadeeda caqabadaha dawladnimadu u dhismi laadahay bay ka mid tahay waxaan aad ugu dardaarmayaa in la saxo fikirka dawlad dhiska dadka hadda siyaasadda ku foogan fahamka siyaasadda iyo dawladnimada ay ka qabaan naftirkeeda waxaan jeclaan lahaa cilmi baarista in lagu daro maxaa yeelay